barakaatu magacaygu waa Sancad waxaan joogaa dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi waxaan halkan u soo istaagay arrin aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan la wadaago gaar ahaan ummadda joogta Soomaalida joogta dalkeeni Soomaaliya oo dhan marka waxay tahay arrintaas aan rabo inaan la wadaago arrin aan shalay soo maqlay galabkii ilaa ay xalata dhan aan soo baaray ilaa ay saaki waxaan go'aansaday inaan baaritaanka sii wadin sabab la xiriira in waxaan inta aan baarayo ku mashquulsanahay baaritaankood inaan laga faa'iideysan oo isla markiiba aan loo gudbin cudurkii waxayna ku saabsan tahay arrintan cudurka corona ama COVID-19 waxa way arrintan shalay subaxii waxaa la helay hal kiis oo dalka Kenya ah halkii kiis oo dalka Kenya markuu wasiirka uu cadeynayay waxa in xaqiiqada uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya asigoo qodbadiisii wato waxa hadalkiisii kamid ahaa qoraalna uu ku soo dhigay meel in uu yiri waxaan ka hortagaynaa dalkiisii iyo afaariiq qosay markuu ka soo baxo yiri si aanan ugu gudbin cudurka Soomaaliya waa in aan jaadka ka buufinaa aanan u gaarsin cudur ayaka hadalkiisaas ninkaas uu ka hadlay laba arrimood way nooga dhexbixi kartaa asigoo ka faa'iideysanaya labada xaaladood ee labada dal ka dhaxaysa iyo asigoo ka faa'iideysanaya cudurkan saf markaa ee adduunka dhan ka waalay ayuu laba arrimood ay sameynayaan Kenya lama horaan waxa weeye waa cawska jiidal runt iyo ilkana waa la cadeeyaa in uusan naga taxadarin oo walaaltinimo dirisnimo iyo jacayl Afrikaanimo aysan jirin Soomaalina way ogtahay adduunka dhan waa laga ogyahay marka wuxuu yahay muhiimadda hadalkaygu jaadka waxay yiri shalay si aanan ugu dhoofin cudurka dalka Soomaaliya waxaan ka buufinaynaa jaadka waxaan uga buufinaynaa sun oo wuxuu yiri daawiir asiga sun ma oran laakiin waa sun daawaan uga buufinaynaa fayraska dilaysa marka ma ahan laba arrimood buu inoogu soo buufinayaan jaadka waxaan shalay marka ku maqlay galabkii jaadka markii la raro oo diyaaradda la saaro Soomaaliya loo wado beerahooda ma ahan ee waa markii jaadka la soo raro oo already diyaaradda inay baxad ogasha laba arrimoodba inay ayaga u kala taal miiska u saaranta inay kala doortaan inay ku sameeyaan jaadkaas inay sun ah noogu buufiyaan oo qofkii cuna aan la soo rogin iyo in dadkii laga helay corona lagu qofacsiyo ku qofaca ku neefsada jaadkii la dhaho kadibna Soomaaliya u tago cudurkii uu ku dhaco suntiina ay disho labadaba hadhowtana looma qabsanayo ayaga sababta waxa leeyahay Soomaaliya waa wadan liita oo wadan faqiira oo wadan aan ka hortag lahayn daawooyin fiican ma yaalaan ka hortag ma lahan waa wadan la ogyahay meesha maanta adduunka ka taagan yahay inakaan iskeenin macalaas marka waxa weeyaan cudurkaas habaabiye alla leeyahay laakiin cudurka intaana la gaarin suntaas ay Kenya maadan tahay ay ku baabi'i doonaan dhammaan ragga Soomaaliyeed wixii cuna jaadka codsigan soo jeedinaa waxay tahay ummadda Soomaaliyeed inay foojignaato madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku codsanayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Khayre mudanayaal waxaan ku codsanayaa inay bataatanba naga joojisaan jaadka wadankeena loo soo dhoofinayo maxaa yeelay wax faa'iido kuma qabno intaas oo milyan bay maalintii naga faa'iidaan Kenya aan iraahdo bishii iyo maalintii waa isku mid waa lacag Soomaaliya ka baxaysan dib ugu soo noqonayn min fadlan annaka markaan u baahan inaan ka hortag sameeyno taxadar sameeyno hana laga joojiyo qaadka Kenya sidoo kale Kenya waxa wararkooda sirta ah helna kamid ah dadka cudurka uu ku dhaco oo Kenyaatiga in la dejinayo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya markii la dejiyana waa noo soo lugeyn karaan xitaa iska daa baabuur ama diyaarad way noo soo lugeyn karaan